waxaanu maanta warkana ka sii deynayna xarunta commissionka qolka communicationka ama isgaarsiinta halkani waa xarunta ay ku soo dhacayaan waxay warara ee ka imanaya degmooyinka oo dhan iyo markii horena looga jawaabayay shaqaalihii ka shaqeynayay goobaha wixii caqabada ah ama ka hor yimaada oo markaasi halka kan jawaabaha laga siinayay markaana la soo gudbinayay jawaabahooda halka laga bixinayay iyaguna ay su'aalaha soo weydiinayeen maanta oo bishu 15 tahay shalay iyo maanta ayaynu ka joognaa waqtigii doorashadu dalka oo dhan ay ka wada dhacday alxamdulillah rabbil caalamiin horena waataanu idinku sheegnay imikana waxaanu idin sheegaynaa maalintii labaad ee ka dambeysay doorashadu in xaaladdu ay aad u wanaagsan tahay komishanarada iyaguna ku kala sugan goboladuna waxay noo soo warameen in ay xaaladdu degan tahay alxamdulillah rabbil caalamiin tirintii iyo hawshiina lagu mashquulsan yahay oo la wado meelaha qaarkood meelana ayba dhamaadeen marka taasi waa mid lagu mahadnaqo alxamdulillah rabbil caalamiin taas ayaa lagu jira waxa jira warar kaleeto oo soo baxaya oo aan horena idinka dignay aanu xisbiyada uga dignay imikana aanu mar kale uga sii digayno way soo tarayaan wararkaasina waxa weeye wararka soo taraya in la sameeynayo dabaaldegyadaas loo dabaaldegayo xisbi walba leeyahay annaga ku guuleysanay taas mid commissionka ka soo baxday maaha tiro aanu ku dhawaaqnayna maaha mid loo dul qaadan karayana maaha in dadka la majra habaabiyo oo warar beena laga dhargiyo wararkaasi wax yeelo mooyaane wax tar ma laha waanu ka dignay imikana waanu ka digaynaa xataa waxaana soo gaadhay warar sheegaya in wadamada qaarkood laga dabaaldegay oo ka baxsan Somaliland Europe naloo soo sheegay Asia naloo soo sheegay Australia naloo soo sheegay Mareykan baa naloo soo sheegay dadkaasi maaha dad jooga Somaliland oo war u haya waxa ka taagan waxaanu iyagana uga digaynaa dadkiina dibadda joogow ka daaya wararka beenta ah ee aad fidinaysaan xafladaha aad qabanaysaan sawirada aad soo direysaan si kastaba ku soo diro oo qaar ba email ku soo diray ka joojiye baanu leenahay waxaad wadanka u tareysaan ma jirto inaad wax yeeshaan mooyaane haddaad doonaysaan inaad dalkan kharibtaan adeer dadkii baa jooga walaalihiin baa jooga hooyooyinkiin baa jooga aabbayaashiin baa jooga yaad baabi'inaysaan yaad wax yeelaysaan Soomaalina garan marka waxaanu idinka digaynaa inaad joojisaan waa kuwa dibadda kuwa gudahana ee xafladaha hoosta ka xiranaya hodheelada ku qabsanaya goobo kale ku qabsanaya iyadana wararkoodu wana soo gaarayaan waxaanu uga digaynaa mar kaleeto iyo mar labaad iyo mar saddexaadba inay joojiyaan waxyaabaha ay wadaan oo ay ku ekaadaan inay sugaan natiijada commissionka doorashooyinka qaranka ka soo bixi doonta taasa asal ah taasa dhab ah taasa xaqiiqo ah annaguna haddaan nahay commissionka tirada aanu soo gudbino waxaanu u gudbinaynaa oo aanu gaarsiinaynaa maxkamadda sare ee qaranka iyada markaasi ku dhawaaqaysa annaguna waa ku dhawaaqeynaa mid hordhaca taasi waa taa dadka waxaan u sheegaynaa iyagana oo kaleeto khaasatan gobolada iyo magaalada Hargeysa iyagana waxaan u sheegaynaa dadkii laga qaatay lambarada baabuurta ee aanu siinay haddii ahaan lahayd cusbitaallo haddii ahaan lahayd shirkadaha dayuuradaha haddii ahaan lahayd xafiisyada nala shaqeeya haddii ahaan lahayd xisbiyada haddii ay ahaan lahayd dadkii kaleete iyagu dadka culculus waday oo dhakhtarada geynayay ama qaadayay siday u codeeyaan way fara badnaayeen dadkaasi waxaanu doonaynaa inay lambaradii baabuurta ee aanu siinay ay soo celiyaan taasi oo ah arrin nabadgelyo ciidamada Blaiska iyo kuwa wadooyinkana waxaanu faray in ay ururiyaan intii khasab wadada lagu joojin lahaa oo laga qaadi lahaa adigu ka fur gaariga markaad gaariga ka furtana fadlan xarunta commissionka doorashooyinka qaranka ee kugu dhow ee gobolada gay kuwa reer Hargeysa ee iyagu nambarada badan qaatay ee aanu siinay halka anagoo tixgelinna caasimadda ee ku rakibtay baabuurta ee sida sharafta ay qaarkood noo weydiistay
qaarna ayba ahayd ayan shaqayn karin ilaa loogu xidho lambaradaasi waxaan iyagana ka codsanaynaa in ay lambaradii soo celiyaan oo ay xarunta komishanka doorashooyinka qaranka ee magaalada Hargeysa iyaguna ay ku soo celiyaan